الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. أنا مقعي هاي سليمان أو دقمدا زيلع كمدا وحوي waxaan halkan kala hadlayaa maanta ninka la yiraahdo boqor buurmudug ee sheekadiisa waxaanu jaahilna ku xallin dadna una ku xallin daayeero una ku xallin ku hadlaya ninka baa jawaabtiisa siinaya magaca isaaqna uu sheegay waxa weeye wax waliba taariikh buu leeyahay oo sooyaaga ugu jirta taariikhda isaaqa marka isaaq baan ahay leedahay dhibaatooyinkii wadanka ka dhacay ee reerka isaaq ku dhacay ee siyaad barre aw keenay dib wixii isaaq u soo maray xageed joogtay wariya buurmudug isaaq markii wadanka laga soo cayriyay ee dhan walba laga joogsaday ee gada buursiya dawladda siyaad barre ay isku tagtay waxa weeye waa kii dhan walba laga soo xiray boodaale iyo bildaale iyo isa sudan la isku keenay isaaq sudan markii uu yimid wax alla wuxuu cuno iyo wax alla wuxuu cabo waa kii loo diiday xeebna dawladda siyaad barre fariisatay oo ka celisay halka markay joogto wax gurmada iyo wax gargaara waxa uu ka helay beelweynta ciise isagoo isa sulan ku xiran oo carmada cunaya dad iyo xoolo midna aan ahayn gaariyaashii reer cigaale ina cabdi bakaal baan uga soo qaadaya raashinka Jabuuti beesha ciisaale raashinkan oran jiray bildaal iyo boodaale ma gugin boqor buurmudug maqal halka markaan ugu geeyo halkaasaan ku urqumi jiro carmadii uu cunayay aan kaga daadiyo habeen madow iyaan soo qaaday isaaq waxaan ku soo qaaday gaariyaashii reer cigaale يا عيسى وحن كان قربض سيرع ذا لو شيكين سيرع لو الله حي بلها سيرع دوال سمي وياه بالرابضان شن إيه تبان كيجي إيانجي إساق سوى هبكي سوى تسيرع ده ولد وحيد جوكتي سياد بفاحد وان كيريان إيه سمرون كي إسكوجري وان كيريان راشون وحي يا لينا وصار نو حالنا من قربض halkaasoo isaaq urqoonka koobaad oo ka helay xeebta markaan xoreynay cidaan ka xoreynay iyo ahayd wariya buurmudug xaqay ku maqnaado cidii xeeban ku xoreynay yahay ninka xeebta lagu xoreeyay iyuha ee dawladda siyaad barre reer abtigayna magaca muuqdo oo meel yaala iyo midnimo uu leeyahay iyo macna uu leeyahay gooni uga dagaalamay ma jirin isaa wuxuu ku dhex jiray siyaad barre